markaan waa markay tahay waa xustaa bisha November ayuu ii yeeray isu diyaari barnaamij ayaan kaa dhigayaa oo waxaa idhi jaalle ceelgaabta xabadda ka socotaa bisha labaad waxaa weeye bisha 11aad bisha 12aad bisha 3 bilood kadib waay waxaa macno male waa la joogay arrintii waa sii qasantay waxaa weeye maaragtay yuusuf ilaahay wuxuu qallibahayo wax celin kara ma jiro jabhad wadata maaragtay cabdibile iyo eeke inay maaragtay dowladdii afrika ugu xoog badnayd military ahaan inay ka elido waa wax ilaahay idma weeye ismaadnaan lahayn way dhacaysaa markiisu bilaabanaysa waa la arkaya waxayna jiraan weli waa la joogaa oo maaragtay laakiin way soo galgaleen waxaan garanayaa habeen anuu guriga jooga nin baa isoo wacay oo adu gurubkan habargeere maaragtay u ahaa maaragtay jeclaa in xukunku dhaco markaasuu yidhi wasiir cadow waxaan kuu sheegayaa buu yidhi muxuu ahaa saldhigga booliiska ee ku yilay furdada agteeda jabadii a qabsatay ma lahuba waa xamaraadna joogtaa ya xamaraad xamar joogtaa jooga ma lahuba haa subaxii meesha xamar tagnay wixii waa kala waxaysmeen waxaa la qabtay shirweyne soomaaliya waxaa lagu qabtay bila baydhaba oo laga hadlay arrinta maanta say tahay qabaa'ilka qayb laga soo geliyey dowladdana 25 baa soo gashay anigu 25 ka mid ahaa markaasaa waxaa la hayaa maxaan subinaa bood nin la oran jiray iyo maaragtay hadda waa nool yahay maaragtay muxuu ahaa Allah yarxamo jenaraal galaal maxamed nuur galaal waa nool yahay iyo nin kale waxay yidhahdeen wax heshiis la gaarahayo ma jiro cabsida way ka baxday hadee waa dad yani already way soo galeen dalkii way ku jiraan waxaa marka la gaaray maxamed saad barre in la sagootiyo shirweynihii wuxuu isku waafaqay maxamed saad barre la sagootiyey maxamed abshir oo ku jiray dadka macaaridka u ahdee waa kii dadka la xili u ahaa ayaa wuxuu soo jeeshay muxuu ahaa xuseen kulmiye oo markaa ahaa guddoomiyaha baarlamaanka waxaa la yidhaahdo madaxweyne ku meel gaara weeye muxuu ahaa jaamac yarane jaamac yaran wey ha noqdo prime minister waa la isku waafaqay xawaadada badana markaa prime minister ah oo u ah maxamed saad barre u ah waa la isku waafaqay xaggaa la tegey adigu waa ogolaaday maxamed siyaad ya waa ogolaaday maxamed siyaad waa loo tegey aqbal waa u tagnay anagoo guddaa loo diray ma aqaan 12 baan ahayn wuu dhegeystay markaasuu wuxuu yidhi keliya guulaysta wax kale waan ma ogoleen aniga waxaan idhi siyaasi mihi mana ku jiro siyaasadda mana doonanahay baan idhi haddii xil lagu dhiibana ma qabanaysid haddaan ku socdaa haddii waxaan idhi baarlamaanka intuu fadhiisto wax caqli geli kara maaha baan idhi cabdullahi maxamed waan doonanay anugu maya ma odhanaya idhi laakiin xil aan doonanayo ma jiro idhi aad baan ola hadlay in la waxeeya hadda waxaa jira yuusuf hadallo badan baan maqlahayaa waa nin weyn xantiis ma mooga wax badanaad maqlaysaa hay maqlahayaa maxaa ka tiri laleeyahay yani maya aniga ima khusayso anigu waa u caddeeya qof kastaba u sheegaa inaad siyaasad ku jiro anigu siyaasad kuma jiro mana doonayo nin hadda siyaasad waa anqaltaagahaya ma ihi laakiin yuusuf waxa aniga weyn waxa weeye waxaan soo maray cadaabkii dagaal sokean soo maray soomaaliya hadda waa soo kabatay 3 madaxweyne ayay hadda maraysaa maya cabdullahi 5 bay maraysaa cabdiqaasim cabdullahi yuusuf sheekh shariif xasan sheekh maxamed
cabdullaahi farmaajo 5 bay maraysaa waa tartiibtidii oo soo kabsatay alxamdulilah halkaan hadda fadhinaa nabad baan haysanaa markaan joogay state departmentku anigu aan ka shaqaynaya in waxna siiyaan xagga hubka waxaan dhihi jiray daarta aan fadhino maxaan ku fadhinaa nabad baan ku fadhinaa haddii nabad jirin nolol ma jirto waxaan aniga waxa weeye hadda dood baa socota waan ogahay laguma heshiinin shirkii maaragtay muxuu ahaa dhuusamareeb nooca doorashada laguma heshiin nooca doorashada laguma heshiinin weli qalalaas guddi baa la saaray guddiga weli hadda waa ma bilaabanin prime ministerkiina waa dhacay mid kale nin maaragtay siyaayaa jooga waxaan ilaa xalay maqlahayay in maaragtay puntland ninkii matal lahaa ma imaanin jubbalandna ma imaanin guddiga haa dadkii matal guddiga haa 15 laleeyahay waa inay yimaadaan weeye waktiguna waa socdaa waxaan yuusuf aad og tahay guddiga madax bannaan ee doorashada wuxuu sheegay anigu waan dhegeysanay raadiyaan ka dhegeysanayay 2 doorasho qof iyo cod waxay u baahan tahay waxa la yidhahdaa biometric waxa la yidhahdo wuxuu guddoomiyaha guddiga gabadhii waxay tiri bilo badan bay sheegtay 12 bilood ayay sheegtay yuu u baahanayaa iyo dhaqaale ilaa 50 milyan iyo wax ka badan ma haynay tiri haddii si dadban loo suubiyo intaasoo bilood yuu sii qaadanayaa wax marka mar kastaba bilo qaadanaya weeye ama sano qaadanaya aniga ka cabdullaahi cadow ahaan waxaan qabaa waxa weeye waxa u muhiimsan nabadda weeye nabaddii haddii aan sharcigii la dhowrin oon lagu wada heshiin sidee lagu ilaalinaa waxa weeye waxaa lagu ilaalinaya waxa weeye marka u horeysa dadkan macaaridka hadda dowladda maxaafida inta ka soo jeeda waa macaaridka weeye macaaridka iyo dowladdu inay wada heshiyaan weeye isu tagaanoo wax wada goostaan markaas ay wada hadlahayaan inay ahmiyadda kow siiyaan nabadgelyada iyo ummadda soomaali danteeda kursiga aan la fiirinin kursiga lama fadhiyahay haddaan nabadi jirin marka hal la heshiiyaad leedahay hal la heshiiyan wax lagu heshiiyey halla doorashada halla aado waa kow muxuu ahaa waxaa hadda laleeyahay waxa weeye anigu waxaan dhegeysanay habeen ayaan dhaweyd waxaa hadlayay nin aad aan u qiimeeyo aqoonyahana oo maaragtay xildhibaana afguyu ka soo galaa waxaa la yidhahdaa muxuu ahaa uu hadlayay magaciisa hadda iga maqan dalxa miya ya xildhibaan dalxa nin anugu aqaanaa qofaan aqaana nin aqoon la weeye wuxuu yidhi annagaa baarlamaana buu yidhi annagaa go-aanka gaaray madaxweynuhu waa seexay kaasaa jira gobolladu ma keeni karaan muxuu aha gobolladu ma laha sharciga dhexe ma laha sharciga dhexe waxaa iskale baarlamaanka nimanka baarlamaanka waxay ka yimaadeen waa gartay middaas waa arrin cad weeye arrinta prime ministerku arrin sahlan maaha ya doorashada madaxweynihii hadda wuxuu ku jiraa marxalad laga sugayo ra-iisul wasaare inuu magacaabo doorashaduna wax sahlan maahan wax talaa ma ka siisay mise kula xiriiray oo asna ima warsan anna ma siin asna ima warsan anna ma siin waxaan u waxa weeye maaragtay dee ma aha iska dhexgal ma aha hadda anigu waxaan qabaa maamul bacmaa aan kusoo jiray muddo badan barnaamij waa joogaa waa caretaker weeye baarlamaanku waa jooga waa caretaker weeye inta caretakerka uu jiro maamulka waa soconayaa nabaddii waa jirtaa inta caretaker uu jiro ha la gaaro in la heshiiyo habkii doorasho u dhici lahayd marka hadda adigu waxaad leedahay maamulka si caadiha u socdaa wax qaladahoo weyn oo jira male waa caretaker sidaana wax dhibaato aniga ma arko aniga maamul waa kusoo jiray wax dhibaato ma arko nin prime minister ku meelgaara yaa la magacaabay oo ahaa deputy prime minister ahaa golaha wasiirada khamiisna waa fariisteen tii koris waa fariisteen wax dhibaataa ma jiraan waxaa weeye marka in lagu heshiiyo habkii doorashadii maamulka waa jiraan dalku waa nabad weeye hadda maaragtay dagaal sugee ma dhicin haddii maanta la dhihi lahaa maxaa cabdullaahi farmaajo maanta hadduu dhihi lahaa
cabdullaahi axmed cadow tale iga sii prime ministerka aan inta dhiman dalka maamulkiisa wadi lahaa tala caynkaad siin lahayd wallahi waa adag tahay yuusufow way adag tahay way adag tahay maxaa jira waxa weeye mar waxa ay qaadi karaa maaragtay muxuu ahaa nin jacayl ba ay qaadi karaa nin jacaylkaasna dan waxaa dhici karta inuusan u noqonin ummadda anigu waxaan qaba waxa weeye madaxweynuhu inuu suubiyo la tashi fara badan inuu suubiyo asagaa laga rabaa dastuuriyan asaa iska leh magacaabidda waa awoodiisii prime ministerka asaga u taha hadduu kan sii haysanayo kan joogahayane waa walan good wax dhibaataa ma jirto oo doorashadii lagu la aado xoogga la saaro ila saldhigga ceelkii waxa weeye doorashadii weeye ceelka runta in la aado ah waa doorashadii in lagu heshiiyo habkii doorashadii maamulku waa socdaa okay marka waxaa la dhihi karaa waktigii baa ordahaya doorashadii marka hormaa la subinayaa aniga ka caddo ahaan aan gafsanaado waktiga muhiim ma aha in la heshiiyaa muhiim ah in la heshiiyo yaa muhiim ah haddii ay ku darsanto bilooyin mashkila ma jiro nabad baa socota dalku waa nabad haddii ka hor la heshiin karo ha la heshiiyo waxaan qabaa aniga waxa weeye xoogga in la saaro in la heshiiyo macaaridka iyo dowladda inay heshiiyaan oo ay ku heshiiyaan habkii doorashada haddii markaa waktigu sii socdo ha ku heshiiyaan wixii ay ku dari lahaayeen ilan way caddaysay gabadha guddoonka doorashada way caddaysay in waktigii aan la suubin karin waktiga hadda haray inaan la suubin karin doorashada la rabo in la suubiyo waxaa maaragtay raggii lasoo bedelay ku jiray intaan jooga markaan joogu yimid waa sanadkee markaas waa sanadkee marka labaad oo safiirka lagaaga dhigaa maraykanka waxaa weeye 1986 waa markaas marka maxamed cabdullaahi farmaajo asagana oo imaanayo oo diblomaasiyiinta nin dhalin yar buu ahaa laakiin nin dhalin yar buu ahaa waxaa markaa loo soo bedelay inuu noqdo xogeyaha koowaad ee arrimaha maamulka xisaabaha maamulka nin firfircoon buu ahaa marka anigu waa maaragtay muxuu ahaa markaasu wuxuu u yidhi waxaan rabaa jaale safiir inaan wax barto waa soo dhameeyey buu yidhi iskuulkii sare jaamacadda inaan aado waayay hamaari laakiin shaqadeedina waa inaad qabataa waxaa markaa ku hinaasay rag ka mida asaga dadka ay isku jifadayeen rag ka mid ah oo meesha joogay safaaradda ninkani markaa adeer hawshuu gudanayey wuu baxayay waktiga galabtii ahayd baxayey markuu soo laabto oo safaaradda la xirahayo shaqaduu bilaabahayay ilaa habeenkii buu wadahayay markuu dhammeeyo waxaa la rabaa maamulka iyo xisaabaha haddaa xisaabxibirka asaa iska leh mishaarka asaa waxaynaya wuu suubinayay shaqadiisi waa qabanayay waxaa markaa maaragtay qaar baa hinaasay waxay leeyihiin muxuu ahaa mar alla markuu soo galo waryaha maxamed farmaajo safiirka waa ku doonahay waa ku dhamaatay safiirka waa ku doonahay anigu waa la socdaa bas wuu ii soo galahaya isagoo toos kasoo kor waa ii soo galahaya bas masalo bas shaqaada waa annaga saacadihii waa la xiraya safaaraddii asagoo kaa rahaya ku shaqaynayay habeenkii buu shaqaynaya waqtigii marka waxaad u ogolaatay heshiiskiina wuxuu ahaa jaamacaddiisana inuu dhigto shaqadiina qabto shaqada inuu qabto wuu ka baxay marka muxuu ahaa qaar baa aada ugu hinaasay waan ka celin jiray marka waxaa jirtay aan rabay promotion inaan suubiyo nin baa soo geli lahaa ninkii awgii buu yiri ma rabo anigu adeer halka iyadoo la joogo ayaa maaragtay muxuu ahaa waxaa bilowday soomaaliya inay leeleeqato